duqeymo ayaa dhacay ilaa iyo gelinkii dambe ee shalay madaafiic ayaa lagu garaacay waxana ay taas u sababtay in khasaare culus shabaab halkaasi lagu gaarsiiyo sidoo kale tan tiro maxaabiisa gacanta lagu dhigo waa beriguna sidaasi ayuu ku bariyay hayeeshe barqanimadii hore ee saakay kooxda shabaab ayaa isa soo abaabulay si ay xubnaha maleeshiyaadka ah ee halkaasi goodoonka ugu ahaa ay wada ugu furaan ama ay ula baxsadaan waxana ay qaraxyo waaweyn ay gaadiid ku soo daabuleen iyo sidoo kale tan markaasi xubna nafti haligayaal ah oo qaraxyo isku soo xiray ayay adeegsadeen waxana ay horumar ay ka sameeyeen dagaalkii subaxnimadii hore saake halkaasi ka dhacay iyagoo u suurta gashay in ay wada u furaan xubnihii shabaabka ahaa oo markaasi in ka badan 100 xubnood ahaa oo ay goodoon ay ku hayeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iyagoo markaasi ku guuleystay in xubnahoodii ay markaasi wada ay u furaan dagaal markaasi aan waxba la isku reeban ayaa markaa halkaasi dhinacyada ku dhex maray nin walbana halka uu jooga ayuu jilibka ku laabtay xabadaha ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan qori walbana waa la isku adeegsaday waana mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa ee sanadkan inuu ku gudo jirnay 2026 ka dhacay gobolka Hiiraan ama bartamaha Soomaaliya ayuu noqday dagaalka maanta halkaasi ka dhacay qasaare kala duwan oo culus ayaa dagaalkan ka dhashay sida ay dadka deegaanku ay soo warinayaan oo guud ahaanba dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ila iyo xogihii ugu dambeeyay inuu helayno waxa ay tilmaamayaan in kooxda shabaab ay maleeshiyadii ugu badnaa ee ka soo daabashay dhinaca degmooyinka aadan yabaal iyo wabaxo oo ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo gobolka Galgaduud iyadoo ujeedadu ay tahay inay awoodooda isugu geeyaan aaga deegaanka teedaan ee gobolka Hiiraan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo u babac dhigay duulaan culus oo ay shabaab halkaasi ay ku soo qaadeen ayaa iyagu iska caabiyay waxana ay markaasi ay gacantay ku hayaan guud ahaanba qaar kamid ah deegaanada ugu muhiimsan ee lagu dagaalamay iyaga oo ciidamada xoogga dalka ku dadaalay inay shabaab aysan la wareegin deegaanada muhiimka iyo fariisimihii ugu waaweynaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kani waa mid kamid ah duqeymihii shalay loo adeegsaday kooxda shabaab diyaaradaha dagaalka oo ka qayb qaatay ayaa gantaal ku dhufsanaya xubna shabaab ah oo markaasi aaga xasan raqay joogay waa xubnihii goodoonka ahaa goob aan sidaas kaga fogeen xubno kale oo markaasi iyagu u soo socday dagaalka wuxuu ka dhacay hal aag oo kaliya ma aha waa ilaa iyo dhowr aag oo isku dhawaa oo kala duwan ciidamada xoogga dalkuna ay isku qaybiyeen iyagoo garab ka helaya ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisley teedaan waxa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka wali dagaal goosgoos ah ayaa ka dhacaya aaga xilli kastana xaaladdu way si adkaan kartaa maadaama gurmadyo xoogan ay helayaan kooxda shabaab ciidamada xoogga dalka gurmadyo kala duwan oo ka baxay beledweyne iyo qaybo kale oo kamid ah gobolka Hiiraan ayaa gaaray aaga dagaalka waxana suurtagal ah in xilli kasta dagaalku uu ballaarto iyadoo oo sidoo kale tan diyaaradaha dagaalku ay ka qayb qaadanayaan